magaalada Boorame xarunta gobolka Nawdal waxaa habeennimadii xalay ka dhacday kulan ay isku arkeen inta badan bahda sportiska ee gobolka Nawdal kaasoo lagu soo dhaweynayay Muxiyadiin Cabdilaahi Warsame Guray oo kamid ah halyeeyada dhanka sportiska gobolka Nawdal kor u qaada isla markaana ku nool dalka Mareykanka oo dhawaan soo gaaray caasimadda gobolka Nawdal ee magaalada Boorama. kulankan waxaa lagu faaqiday intii lagu guda jiray heerarkii kala duwanaa ee sportiska gobolka Nawdal uu soo maray isla markaana waxaa lagu falanqeeyay siyaabaha kor loogu qaadi karayo sportiska gobolkan isla markaana horumar baaxad leh loo gaarsiin karayo. isuduwaha wasaaradda cayaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Nawdal mudane Cabdiwahaab Yuusuf Ibraahim oo isagu madashan ugu horeyn ka hadlay ayaa waxa uu faaqiday taageeradii uu sportiska gobolkan ka geystay Muxiyadiin Cabdilaahi Warsame Guray isagoo ku amaanay garab istaagidda horumar la gaarsiiyo sportiska gobolkan wuxuuna hoosta ka xariiqay heerarkii kala duwanaa ee sportiska gobolkan uu soo maray. haddii aynu ka soo bilowno mid aynu sheegno inta badan waxaynu ku xusnaa Djibouti safarkii mar labaad waxa uu qabtay hawshii tartankii aynu ugu magacdarnay Allah naxariistee Umar Ibrahim Meerane iyo Xasan Cabdilaahi Bulaale oo aad uga garanaysaan hawshaan ninkii ka soo shaqeeyay ee soo guwaabiyey inaynu inaan xusno oo aynu xusno koob shii Ramadaan la qabtay هدي فكر كيسي بهاي واحد يبنى حسن ولا ترتكي واحد بان مرنا السجالية سجاشكي ترتكي أرتكي وفيه أيورا قبطه أو ده هو ديسك واحد محيطين وفكي كسود دياري مريكا هاوش سوق بقابي كان لا أنا كجعان قبتين نقول كنا عمود فوديش مرصد حاد واحد هاي ترتكي إنه وضع حسنا هاي نكتني سفر كي ولا سنين نكتني جبوتي وها بتاريخ ذكري إلا يمكن أغشى كني وقتيسي وها قدامي كوكي قدامي بشير رمضان كوكي قرب بدنا وقصو دري مريكان وكحصي الله نحرسته سلطان الشيخ موسى جامع وذا انت هاسوك وقوة وها عند اللي يردي هذي كوين كشيء سو هيرجرو إنه جرو كاسم اسمه سير اللي يركض فرقان مركي دبي هاوشي أي حكومة وقاعتي أي دير كوريجسي وحديني وحياة هاين وحكوريجي العتي أصردا سيجتكا وبستمر به من العتي والكشف. madashan intii ay socotay waxaa shahado sharaf lagu gudonsiyay Muxiyadiin Cabdilaahi Warsame Guray taasoo loogu mahadcelinayay sida uu had iyo jeer ugu taagan yahay horumarka sportiska gobolkan. kadib shahado sharafkan markii la gudonsiyay waxa uu Muxiyadiin Cabdilaahi Warsame ka hadlay madashan waxauna ka sheekeeyay dadaaladii uu galay sidii horumar ay u gaari lahaayeen bahda sportiska gobolkan wuxuuna hadallo dardaarana u jeediyay bahda sportiska. waxay ku suurta gashay markii ugu horeysay wax la moodaya siyaasad iyo waxas laakiin ta suurta gelisay waxa ahayd xidhiidhka ka dhaxeeya dhalinyarada Boorama iyo dhalinyarada reer Djibouti taasa suurta intii ay Soomaaliland jirtay shirkadkaasi dawladdu xataa way jabin kartay inay tagaan Djibouti oo Muqdisho baa ciyaartay laakiin jiray marxaladihii aanu marnay 10 bilood buu socday waxaan ku dhawaaqay maalintii aan ku dhawaaqayay waxaan joogay magaalada Ottawa ee Canada shir qodobka gareelad awdal ayaan ka qayb galay waxyaalihii aan ka sheegay waxa kamid ahaa inaan saadaalin inaan u bixi doono Djibouti oo garoonka Boorama diyaarad ka qaadi doono ciyaartooyga iyo inaan hirgelin doono أرضاء السوقي مادان Djibouti إثيوبيا الحمد لله لبدي بوهر كلام حقي سبورت وحياة قبل يا أي أحد إن شاء الله هدي له إنه ما نبي بتولى المدحون حقين تفصيلي عن حلقة كل شيء كاستي حقيقي نيت بيدن هيا ضدك قربات شو بين خلاف كي ناس دبت أو صباح taas waxay ka dardaaraya aad baad ka dardaaraya
baalkan website-ka la yidhaahdo haddii laydinku arko idinkoo iskhilaafsan dad badan oo niyadinii hayo way niyad jabayaan. si kastaba ha haatee gobolkan awdal waxa uu ka mid yahay gobolada Somaliland ee xagga ciyaaraha ugu horeeya waxaana xilligan socda dadaalo ay wadaan qurba joog uu hormuud u yahay Muxiyadiin Cabdilaahi Warsame oo lagu dhisayo garoomada kala duwan ee caasimadda gobolkan awdal ee magaalada Boorama. Cabdi Fataax Axmed, Boorama.